ninkii waday baa waxaan ku yidhi ninkaani imise sano ayuu cabaadahayo saa u dhawaaqahay 15 sanay ka badan tahay buu ninku saa u dhawaaqahay ninka gurigii baa laga seexan waa aagii baa loo dhawaan waa asagii baa hurdo ka tagay dhaqaatiir kala duwan baa meel walba la mari meel walba la geeyay qarashka saa lagu bixiyay saas u dhawaaqahay waxaan ku yidhi maxaa ku haya holac baa wixii halka iga qabanahay markaasana waxaan gaarayaa inaan cabaado oo dhawaaqo dhawaaqaas aan cabaadayo dhawaaqayo ayaa nafsi ah nafis baa ka dareema 15 sano weey bal fiirso ilaahayna wuxuu ku siiyay caafimaad lugahaagii baa kuu fiyow gacmahaagii baa kuu fiyow caqligaagii baa kuu fiyow indhahaagii baa kuu fiyow maqalkaagii baa kuu fiyow qalbigaagii baa kuu fiyow ma waalnid midka xoog badan oo muuqaalkiisu qof qurux badan ah ayaa dharka intuu dhigtay dariiqa koombooyinka sida xaarka kaalida qasanahaya oo iska yaala indhahaaga saartay kuna cibro qaadamaysa intaas oo cuuryaamiin ah oo isku yimid oo kulaylka aad aragtay guurguuranahaya ayaad in badan aragtay mana ku cibro qaadamaysa intaas oo indhala ayaa dariiqa saas gacanta loo wada hayaa adiguna laba tilaaba ku gudbaysaa asaguna hal saac uu soconahaya meesha daqiiq u socotay in la wada maahan ma dhaqaaq karo isbitaaladay dhooban yihiin guryahay dhooban yihiin dariiqyaday dhooban yihiin wixii aan ku cibro qaadan lahayn oo inoogu filna cibro qaadasho maalkaaga bix oo ilaahay caafimaad uga raadso oo ilaahay subxaanahu wa tacaala shukri badan baa ku waajib shukriga ilaahay waxaan koobi karna ma ah haddaan ilaahay ku shukrino oo waxa aan haysano oo nicamka ilaahay aan uga shukrino ilaahay waa inoo ziyaadinaya inaga nuqsaamin maayo waa raxmad ilaahay ilaahay wuxuu leeyahay alam taraw anna allaha sakhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina biyana ogeyn oo arkahayn ilaahay inuu idin sakhiray samaawaadka wixii ku sugnaa oo madarkii ah dhulkii ilaahay inuu idin sakhiro khayr iyo barakaad inkaga soo saaray oo nicamkiisa ilaahay idinku shubay oo idinku daboolay zaahiratan wa baatina mid qarsoon iyo mid muuqataba ilaahay nicamkiisa aad dul harsanaysa tilaabada qaadid iyo tilaabadii qaadid baba waa nicam ilaahay oo ku dhex gadgadoomaysid weeyo wama bikum min ni'matin fa min allah وحلا وحا إذن كسوغان أو النمعاء صغيرها وكبيرها إلهي حق زكاة إلهي وأنا أقولات قفك وحا أركيسا قفك إحسان السمين هاي ما أنتو نبو مجالس تكا أمانا يا أو كل شكرين هاي أو ماذا حكت نمكنا يا أو وينين يا أو قدرين هاي إلهي كسي وما هاي أمان ما حسوس نبو قلبك سوى كم بقي بني آدم بو ما تودن أمانة يا بحوكو أمانة يا مصلحة يرؤوا لها أيو مال ما كم إذا كجار أو كهر إلهي قلبك يس مصلحة داس أسو وافتشي أسو أديتشي أو أسو قصبينا قلبك يس ما صام رئيس وكم بقي صدح الرماد أفرس صدح الرماد وحيكوجو كالمين يعني إن النعم كإلهي كشكريس مدك هذه محيطها التأمل والتفكر في نعم الله واستحضارها في كل لحظة وحين إنا هورت النمعة عدو هاي ستد أتكو فكرتد أو صوحة دريسيد قلبي قاقة صوحة دريسيد وآتي لهذا بل إيشان فيري إنت اللي أكتهاي إيا النعفقة يكون لها بل نجاها فيري مقل كأيليه بل عقلك إلهي كسي فيري أولاد إلهي كسي فيري مالك إلهي كسي فيري عافماتك أهي ستفيري بل إنت مسكح هذا حاضر سد هنقول قف إسكت اللعن أو غافل أو هالمانسنة مسكح هذا كشقي أو إن معذب بل أديك كوجو ذيك كفكر وترسك أقول لا يهين وصاحب لا إلا يهين بل أديك كفكر مركا كفكرت أو كفكرت وحيكوب حين يساع إن تراد إن بدل الحمد لله الحمد لله الحمد لله بيكوب حين يساع يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم وارضوا إلهي نعم كيس حسوستا أي إلهي الليل
هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ما waxaa jira khaaliq idin abuuray oo ilaahay aan ahayn oo samada iyo ardada idinka arsaaqamiyaa jira ma jiro ilaahu adiga khaaliqa adiga raasiqa adiga mudabbir adaan ku caabudayna waa inaad tiraahdaa ilaahay marka wuxuu ku leeyahay wardadow nimcadayda xasuusta ilaah aniga ahayn ma jiro cibaado anaa idinku leh anaa idin khalqa anaana idin arsaaqa war xagga arrinkaan idinka mar waa waana lagugu waaninayo qofku marka nicamka markuu xasuusto waxa u soo baxaysa dad badan oo nicam kala duwan haysta haday tahay waxay cunaan haday tahay waxay cabaan haday tahay waxay xirtaan haday tahay guryahay degan yihiin haday tahay gawaarida haday tahay awlaada way ku raaxaysanayaan maca dalika intaas oo kale oo damiir ah oo dareen ah ma leh maxaa ka qaaday weligiis ma waayin waa nimco la joogtay oo iskala daris ahayd oo iskala socotay oo uu ku seexanayo ku soo toosahayay maqnaashaheeda marna ma dareemin markaasuu wuxuu iloobay ilaahaygii u nimceeyey shukrigiisu iloobay arrinka labaad oo kuu fududaynaya ilaahay nicamkiisa inaad ku shukrisid waxa weeyaan midka nebiguna baray calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebi moxamed uu leeyahay انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم waxaad eegtaan kuwa idinka hooseeya arrimaha adduunyada kuwa idinka hooseeya eega ha fiirinina kuwa idinka sareeya fahuwa ajdaru an laa tasdaruu nicmat allaahi calaykum kaasaa wuxuu xaqiiqo ku yahay oo u dhow yahay inayna nimcada ilaahay xaqirin oo maxay tahay qofka ka hooseeya ka caafimaad liita ninbaa xala waxa arkay dhaawaca lug baa go'an midda kalena waa tabcaan korkiisana xanuun badan baa hayay markuu ii sheegay dhibaatada haysa ayaa waxaan u sheegay in qof aan soo arkay shalay xaaladda uu ku sugnaa baa u sheegay markaasuu gacmaha taawiyey waxaygu qarso weeye marka waxba kama jiro soo jeedta waxaad eegtaa dhib kastoo ku haysta kuwa kaa hooseeya caafimaadkaaga hooseeya maalkaaga hooseeya awlaadkaaga hooseeya magackaaga hooseeya nololkaaga hooseeya kuwa hoos u fiiri arrinkaasi wuxuu keenayaa waxa aa haysatay inay kula weynaadaan oo aad ogaato waxba inaysan kaa maqnay riwaayadda kale waxa weeyaan imaamu albukhaari idaa nadara axadukum ilaa man fudila calayhi fi lmaali waalkhalq haddii qofkiin eego qof laga sarraysiiyey xagga abuurista iyo xagga maalka baa lagaa sarraysiiyey caafimaad buu haystaa adigu caafimaad ma haysatid abuurista ilaahay abuuray buu kaaga sarreeya maalkiina waa kaaga sarreeya haddaa eegtaan oo qofkiin u eego falyandur ilaa man huwa asfalu minhu miman fudila calayh ha eega markaasbaba kuwa asaga ka hooseeya oo asaguna abuurista iyo maalka uga sarreeya fiirsho markaas cibro qaadanaysa arrinka saddexaad oo kuugu kaalmaynaya oo ugu dambeeya waxa weeyaan inaad ogaatid maalinta qiyaamaha ilaahay hortiisa in lagu weydiinayo nicamka isaga oo arrinkaas su'aal ay ka dambayso oo aan intaan la isaga harahayn inaad ogaatid ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والذي ويدينا يا مالين تاس وحي نعم ليدين قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لما هو نسويدين مالك بقى لقويدين عافماتك قال لقويدين إنها قال لقويدين مقلك قال لقويدين قلبك قال وحا كل اعتقاد السال لقويدين تلابك السؤال قادمة لقويدين qofka taas ay sugaysaa sidoo rabo ma dhaqmi karo way ni'amka shukrigoodi waa inuu la yimaado walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim wuxuu yiri ilaahay wuxuu leeyahay maalinta qiyaamaha adoonkiisa wuxuu ku oranayaa alam ukrimka miyaanan ku karaamayn wa usawidka nin sayid ah oo qoomkiisa madax u ah miyaanan kaa dhigin wa usawijka miyaanan kuu guurin guurku waa nimco weyn
وأسخر لك الخيل والإبل جيل يفرضها ميانا كسخر أو مال أنا كسين رير ميانا كسين أولاد ميانا كسين شرف يقيمة ميانا كويرين حديثك كلا وحوي على مصحة لك جسمك جسمك أجا صعاف ما عنو كومثين أنت مرك الله أخريه الله حسوسيه وحليه هاي بلا ها وإن هذا السيس كده واسيس ما يمكنك مركز إلهي وحليه أفظننت أنك ملاقي ما يقين